saddex dil oo uu ka geystay magaalada Gaalkacyo waliba labada dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudugba dilal uu ka geysan jiray qaraxyo uu ka geysan jiray dadka wuxuu ku dili jiray marka masaajidka ay ka soo baxaan xilliyada salaada kaliya uu gaadi jiray meel kale kuma gaadi jirin magaalada asagoo joog ma gaadi jirin maqaayad kuma gaadi jirin masaajidka kaliya ku gaadi jiray eedeysana Anas shabakadan asaga wuxuu ka ahaa amiirka ahaa dilka la geysanay iyo wax alla wixii la geysanay asaga qorsheynay hadda markii qaraxa la sameeyay oo eedeysana aadan la qabtay oo ka war helay wuxuu isku dayay inuu ka baxsado laamaha amniga bacdama uu og yahay aadan inuu sheegi doono shabakada inteeda kale number 1 wuxuu isku dayay hubkii iyo miinooyinkii qaraxyadii meesha u taalay inuu ka bixiyo isaga balse ciidankii ayaa uga hormaray oo alaabta ka soo qaaday meesha cidii joogtayna soo qabtay eedeysana asagoo dhanka Puntland xigta ku dhuumaaleysanaayo raba inuu fakado ay laamaha amniga ka war heleen wayna soo qabteen meeshaas maxaa ka cad eedeysanahana waa qirtay fal dambiyeedka uu geystay wayna ku cadaayo cadeymihii iyo marag muujinadiina maxkamadda loo keenay haddaba eedeysanaha labaad oo ah aadan mursal waxaan ku haynaa uu isagana uu qirtay fal dambiyeedida hadda maxkamadda uu ka hor qirtay oo ah inuu ka tirsan yahay al-shabaab gaar ahaan qaybta jabhadaha uu soo maray dagaalo uu ka qayb galay ilaa hiiraan ka dhacay lambar 2 inuu qaraxyo ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo uu isaga ka dambeeyay bamba inuu saldhig ku tuuray inuu gaariga miinada hadda lagu qarxinayo asaga ku qarxiyay sidaasna lagu qabto uu qirtay wuxuu diidan yahay oo horay uu qirtay maxkamadda darajada koowaadna ay ku heshay fal dambiyeed dil ah qof shacab ah oo ka soo baxay masaajidka ayaa waxa dhacday in labada eedeysane uu ku qornaa marka hore dilka inuu geysto Anas asaga uu soo fiirsaday ninkii la dili lahaa balse intii hawsha ay socotay uu isbedela Anas oo isiriya loo qaban laakiin ninka kale ku mishin aadan ayuu howlgeliyay aadan uu yiri dil waxa waay ninka caaga wata mehe kan kale waay aadanna wuxuu dilay ninka caaga watay oo ahaa nin shacaba oo aan wax dawlad xataa ka tirsaneyn ma jirin wax ka dhaxeeya eedeysanaha iyo maxaa lahayn ninka uu dilay oo shacabka ah si bareera oo ku talagal u dilay halka ninka lagu magacaabo Anas uu markii dambe gadaal ka dilay Cabdi Dheere ninka lagu magacaabay oo uu rabo markaas inuu dilo aadan macnaha ninka caaga wata ma ahay ninka kale dil marka uu leeyahay oo ninka caaga wata uu aadan dilay ninka soo haray oo la rabay in la dilo ninkaana dilay Anas ah waa cadahay waa qirtay muuqaalaha maxkamadda soo horbarnignay cid walbana way arki kartaa labadan eedeysane fal dambiyeedada ay geysteen waxay ahayn caadeystayaal fal dambiyeed oo dambi ku noqnoqdo caadeystay ahaayeen waxay ahayd in maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markii ay ku xukuntay dilkii toogashada ahaa oo ahaa qisaastii dilalkii ay geysteen in lagu fuliyo ahayd cadaaladda taas ahayd inay helaan haddaba bacdama eedeysana Anas uu og yahay sharciga iyo xeerarka dalka ka jiro sidaas awgeed ayuu muddo 30 bari ah inta aysan ka dhicin raacfaan u soo qaatay waxaan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee sharafta la ka codsanaya ayadoo fiirinayso marxuumiintii ay dileen eedeysanayaashan gacantooda ay ku dileen ka tirsanaashihii ay ka tirsanaayeen kooxda nabadiidka ee al-shabaab dhibanayaashii dhaawaca ahaa ee ilaa ay hadda isbitaalada u yaalo qaarkoodna dalka gudihiisa wax looga qaban waayay ee dibadda loo qaaday dhaawacooda ayadoo fiirinayso si ay cadaalad u helaan waxaan maxkamadda sharafta leh ee ciidamada qalabkiisa ka codsanayaan in eedeysanayaashan ay mar kale ku xukunto isla ciqaabtii fal dambiyeedkii ay geysteen oo ah dil toogasho ah isla markaana maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayadoo fiirinayso dhibaatadii eedeysanayaashan ay ku haayeen magaalada Gaalkacyo oo laga qabtay gadaashood wax fal dambiyeed al-shabaabnimo ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ma jirto shabakadii ay ugu dambeysay ayagay ahaayeen waxa codsanayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan eedeysanayaashan loogu fuliyo dilkii toogashada ahaa ee xaq ay u lahaayeen maxkamadda waa maasanta